Sheekadani waxay igu dhacday maalin maalmaha ka mid ah. Hadda baan ka imid gurigii. Waxa ay ahayd maalin dheer. Ma sugi karay inta aan tagayo guriga oo aan qaadanay nasasho. Waxaan ahaa 5 jir. Waxa aan hurdo qoto dheer. Hadda baan ka kacay hurdada. Waxa aan isku diyaarinayay iskoolka. Dabadeed markii ay hooyaday gaadhiga kaxaynaysay, waxaan arkay har weyn oo kasoo daba baxaya geedka. Waxa uu ahaa jini naarta ka yimid. Wuxuu ekaa mid caato ah oo dheer oo dhigafkiisa ka soo baxayo. Waan naxay anigoo naxsan ayaan isku dayay inaan hooyaday u sheego waxa aan arkay, laakiinse hooyaday ima ay maqlaynin. Waxa aan ka fikiray in aan naftayda ku sii hayo waxa aan arkay ama aan u sheego qof kale. Waxa ahayd waqtigii qadada. Waxa aan tagay cafeteria. Waxa aan ahaa qofka ugu dambeeyay ilaa aan ka dhammaynayay shaqada iskoolka. Qof kasta oo kale wuxuu ahaa mid dhameeyay mar hore. Waxa aan isku diyaarinayay in la ii keeno qado. Islaantii adeegaysa gadaasheeda ayaa waxa aan ku arkay isla jikii aan ku arkay geedka, laakiin ma lahayn madax. Maan ka warhayn waxa islaantu saartay saxanka. Wuxuu ahaa madaxii jinka. Wuxuu ahaa mid dhiig ka tifqay. Waxa aan tuuray saxankii waxaana u orday xoog. Laakiinse maamulkii iskoolka ayaa u yeedhay waalidkayga. Waxaana uu sheegay inaan amar la'aan baxay. Waxaan isku dayay inaan hooyaday iyo aabba u sheego shay kasta oo igu dhacay maalintaas, laakiin qofna ima rumaysan. Waxaan u malaynayay waxan inuu yahay wax aniga igu khaasa. Markii aan tagay guriga hooyaday, waxay ii sheegtay in aan qaato nasasho. Markii aan tagay sariirta ee aan seexday, waxa aan ilaaway shay kasta oo igu dhacay maalintaas. Waxa aan ku kacay qof dhabarka iga taabanaya. Waxa ahayd hooyaday oo igu leh wiilkaygii wixii aad maanta iskoolka ku soo aragtay. Dabadeed waxa ay tilmaamtay daaqadda. Markii aan arkay aad ayaan u naxay. Aabbay ayaa soo qaatay qori si uu ii difaaco aniga. Dabadeed markii aan eegay mar labaad wixii waan waayay. Isla markiiba waxa uu ka soo muuqday qolkayga isaga oo guuxaya. Markii aan arkay aad baan u qayliyay. Waxa aan ku dhacay sariirta. Waxa aan go'aansaday inaan ilaaliyo naftayda. Toddobaad ka bacdi waxaan arkay walaashay oo wax sawiraysa. Waxa aan weydiiyay maxaad sawiraysaa? Waa ay tustay. Markii aan arkay waan naxay. Wuxuu ahaa wixii aan arki jiray. Waxa aan weydiistay sawirka inay siiso. Ugu dambeyntii iyadna way ku raacday oo waa ay siisay sawirkii. Waxa aan ka soo qaatay sawirkii waxaana u soo qaaday xagga qashinka si aan u gubo. Ugu dambeyntii sawirkii waa aan gubay. Maalinkaas ka bacdi ma aan ilaawin dhacdadan igu dhacday noloshayda. Waxa aynay noqotay xasuus.